نور هنا نور كان بهلولك جر القوم إخواني هنا نور هنا عمل فخير كان وكفني تزيد بخطوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. dariskani waa daris cumuuman ku saabsiisan al-umma alislaamiya iyo dhibtan haysata iyo maxaa lagaga bixi karaa. ummadda soomaaliduna malaa'ikow ka sii tahay. waxaa laga yaabaa wakhtigii ay soomaaliya waddankii la odhan jiray uu burburay ee maraykanku xamar soo degay, waxaan xasuustaa iyadoo bushil ab uu ka soo degay magaalada xamar, oo dabeetana dadka badh ay jecel yihiin xidigtii yarayda calanka soomaaliyeed ku taallay in lagu dhejiyo xidigaha badan ee ka maraykanka ku dhex yaalla. maalintaasi sawirkaa wixii aan ka fahmay waxaan isku dayay bal inaan wax tawjiihin karo. waa 1922 disembar baan rajaynaya. waxaan galay muxaadaro aanu bixiyey ayna alxal, mushkiladdeenna maxaa u xala, ma xidigtaynu xidigaha ku darsannaa mise xal kalaa la hayaa. waxaad mooddaa 17 sano 18 sano kadibna weli waxaan ka hadlaynaa mal makhraj, war nafaqan madow ee lagu jiro ma jiraa meel looga baxaa. qadiyaddaasi aan u soo bandhigi karo aniga inta ii muuqata, waxaan isku dayaya inaan muqadamo sameeyo taariikhiya, waayo taariikhdu waa waxaa in badan wax lagu qiimeeyo, waa waxa in badan ilaahay subxaanaه wa tacaala uu kitaabkiisa inoogaga warramayo tajribooyinkii bini aadamku uu ka soo warramay. dariskani muqadamu u noqon doonaa in sha allahu tacaala. duruusta dambena waxaan kaga warrami doonaaba taariikhda uu qur-aanku soo bandhigay siyaasiga, taariikh ilmuluuk ee uu qur-aanku ka warramayo iyo siduu uga warramay. laakiin dariska kan waxaan ku tilmaamayaa taariikhda guud aynu arkaynaa waxa weeyaan, waxay yidhahdaan taariikhda caalam alislaami. taariikhyahanada qaar baa waxay yidhahdaan waxaa jira maxadaad ama meelo waaweyn oo taariikhdu isbeddeshay. kow waxay isbeddeshay bay yidhahdaan dee nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soo bixitaankiisii iyo jiili saxaaba iyo taabiciintii kontoneeyadii sannadood ee ugu horreeyey taariikhda islaamiga, oo ah wakhtigii dunida risaalada islaamiga ay biyo dhigtay, mabaadi'deeduna ku faaftay, dhul badanna ay gaadhay. taariikhdaasi islaamigii kor bay u sii socotay ilaa iyo ay bilaabantay qarnigii 11aad ee miilaadiga dabayaaqadiisii wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya, crusades, oo ah in qalbi alcaalami alislaami dib loo weeraro. mandaqat shaam iyo masar iyo bartamihii caalamka islaamiga in weerarku dib ugu soo bilaabmo, oo uu bilaabmo wixii loo yaqaanay alxuruub asaliibiya taariikhda lagu yidhaha crusaderski. laba qarniin ku dhadhow bay taasi socotay. akhiiran waxaan odhan karnaa waxay taariikhda islaamigii isbeddel xooggan samaysay qarnigii 20aad markii ay dhammaatay xadhiggii isku hayay dadka muslimiinta ah ee ahaa alkhilaafa alislaamiya, khilaafadii cuhmaaniyiinta oo intii dambe iska mariid ahayd markii la kala dareeriyey. taariikhyahanadu waxay sheegeen arrintaa waxaa ka dhashay bay yidhaahdaan
1924 baan filayaabaa la kala dareeriyey alkhilaafa alislaamiya oo turkiyana jamhuuriyadda iclaansatay caalamulislaamigii kale maxaa ku dhacay waxay dhahdaan saddex waxbaa masaladaasi ka dhashay kow waxaa muuqday dib u dhaca uu ku jiro caalamka islaamigii marka la eego horumarka maadiga ee dunida kale ay samaysay gaar ahaan ninka cad ama yurub horumar alculuum alxayaatiya ama maadiyo tiro badan baa laga sameeyey technologygaa soo ifbaxay way xoogaysteen muslimiintana waxaa muuqatay cawradoodii oo ah qarniye inay hurdeen horumarkii bini aadamkii ay hoggaamin jireenna inay ka luntay oo ay xagga aqoonta dunida taalla ay ka noqdeen caydh kaasi waa qodobka koowaad qodobka labaadee ka soo baxay wuxuu noqday in caalamulislaami dhammaantii ama intiisii ugu badnayd marka meel yaroo kooban laga reebo uu hoos galay haymanadii ama isla weynidii reer galbeedka colonialismkii ama isticmaarkii baa bilaabmay cahdi alistikhraab in la gumaysto dunida muslimka ah iyo dunida saddexaad ee tabaca u ahayd oo dhan oo afrika oo dhammi ka mid ahayd oo markaasi uu soo baxo nin mustacmar la yidhaahdo oo dadka gumaysta iyo la gumaysto qodobka saddexaad ee masaladaasi ka soo baxay waxa weeyaan waxay ku tilmaamaan taftiit alcaalam alislaami aw tamsiiqi kantoonna yaryar in loo googooyey caalamka islaamiga ah oo manaatiq aw alcaalam mutraamiyo tiro badan iyadoo dunidu basharka ay isugu faanaysay laakiin la kala googooyo aad loo kala googooyey masaladaasi haddaad rabtaan waxaa akhridaan wasiiqada muranka badani ku jiro ee henry campbell wasiiqada lagu magacaabo henry campbell waa 1907 ninkii ra'iisul wasaaraha ka ahaan jiray waddanka ingiriis qoraal loo nisbeeyo oo ah khubarada aqoonta taariikhda ku caan ee wadannada reer yurub gaar ahaan waddanka faransiiska iyo ingiriiska bay yidhahdeen buu wuxuu weydiistay talabixin in la soo siiyo calanka ingiriis ee dunida meel walba ka taagan xadaarada bini aadamku way dumaane wuxuu ingiriisku yeeli doono haddii calankiisu uu soo ururo ingiriisku intaanay taasi dhicin muxuu yeeli karaa dabeetana wasiiqadaasi waxyaabahay qorto waxaa ka mid ah dunida saddex qaybood bay ugu qaybiyeen nimankii talabixinta siinayey dunida reer galbeed iyo ninka cad iyo siduu ula dhaqmayo iyo in xadaaradda iyo cilmiga iyo aqoonta laga dhibo qori isu dhiib oo hadduu ingiriisku yaro gaabiyo maraykanka ama faransiiska ama jarmalka in qoriga loo dhiibo dunida kale inta soo hadhayna bay yidhaahdaan laba qaybood buu u qaybiyey alxadaara asafraa waxay u bixiyaan yalow biibulka ama xadaaradda yalowga ah waa indhayarka iyo eeshiye iyo dadkaasi oo dhan iyaga waxay idhahdeen values ama qiyam la loolama qiyamka ingiriis ma lehe ee reer galbeedka qiyamkiise waxaynu ku wada dhaqannaa masaalix ha noqoto wixii masaalix inoogu jirtana ha la ogolaado wixii kalena ha la diido almandaqati alkhadraa bay idhaahdeen qaybta cagaaran oo caalamulislaami wasiiqadaa waxay u nisbaynayeen inay sheegayso dhowr shay inuu kula dhaqmo kow in aqoonta laga ilaaliyo ama macrifada in xuduud loo yeelo aqoon waxa gaadhi kara siiba technology inaanu gaadhin laba waxay tilmaameen aqaliyaadka ku hoos nool in kor loo soo qaado minority groupska si homogeneous aanu noqon karin ama bulsho mutajaanis oo wada socota aanay noqon karin saddex bay idhaahdeen khilaafaadka xuduudiga in la badiyo qoladan gobol yar ka jar gobolkaa kale ku dar kuwa qaar yar ka jar waxa xariiq maanta dunidu isku haya ingiriis baa dhigay waddanba qabaa'il waa isku qabiilah ayuu inna dowlad heblaayo ku dara inna dowlad heblaayo ku daro si laysu hayo uun ilaa inta qiyaamo ka dhacayo isaga aragtidiisa calaa kulli xaal taftiit alcaalam alislaami halkan waxaynu uga jeednaa uun khilaafadda islaamigii markay duntay wixii soo baxay saddex qodob buu noqday kow inay muuqatay dibudhaca haysta caalamka islaamiga marka laga eego xagga aqoonta laba inay caalamulislaami uu hoos galay
gacanta gumaysiga saddex in loo kala jaray caalamul islaami gobollo yaryar iyo tuulooyin yaryar iyo waddanno yaryar oo dhowr boqol oo kun iyo milyan iyo waxa umamka dunida saddexaad ku nool oo ay ka mid yihiin caalamul islaami waxa ka bilaabantay markaasi fikrad cusub fikraddaasi iyana waxay yidhaahdaan saddex qodob oo saddexdaa qodob ka soo horjeeda bay ku salaysnayd inta aynan ka warramin atyaafta siyaasiga ama kooxaha kala gedisanee siyaasiga fikradda tan xambaaray fikraddaasi waxay ku salaysnayd bay yidhaahdaan kow altaxriir aw alxorriya gobonnimo doon in dadku wada bilaabo gaal iyo muslimba wixii la gumaystay inay raadiyaan xorriyad iyo taladoodu inay gacantooda dib ugu soo noqoto oo gobonnimo doon uu ka wada bilaabmo waxaa bilaabmay bay yidhaahdeen masale labaad oo ay ku tilmaamaan annahda wataqadum waddannadaas la wada gumaystay waxay qireen ama qaateen inay xagga waxbarashada iyo aqoonta iyo technologyga dib ugu dhaceen dabeetana in la bilaabo waxbarasho iyo horumar in la bilaabi karo oo tacliimka waxa la yidhaahdo xoog in la wada saaro qodobka saddexaad ee bilaabmay waxa weeyaan bay yidhaahdeen alwaxda halkii la kala googooyey dadku inay isdoondoontaan iniba si ay isu raaci karto oo midnimo dib loogu abuuro idan waxay yidhaahdaan mashaakilku suura waaxida buu ahaa oo ah dibudhac aqoomeed googooyn gobollada la kala googooyey iyo isticmaar gumaysi la gumaystay dunida saddexaad waxay u kacday markaasi oo uu ka mid yahay caalamul islaami inay xorriyad raadiso iyo inay aqoon dhisto iyo in midnimo la raadiyo waxay yidhaahdaan marka qodobkaa la joogo waxaanoo dhamme waxaan rabaa waxaan u socda inaan muqaddamo u yeelo waxay yidhahdaan qodobkaa marka la joogo tashkhiisu daa xanuunka in la sifeeyo dadku inta badani waa isku waafaqday inuu xanuunku yahay gumaysiga inuu yahay aqoon darrada inuu yahay kala googo'a waxaad mooddaa in xanuunkaa sidii loo sifeynayay la isku wada waafaqay inta badan dawadiisana si guud in la isugu waafaqay waa in xorriyad la raadiyo iyo gobonnimo in midnimo la raadceeyo iyo in horumar la raadceeyo laakiin bulshadii dunida saddexaad ku nooleed siiba bulshada islaamigii waxay ahaayeen kooxo siyaasiyoo kale afkaar gadisan baa waxaa xambaarsanaa kooxo qowmiyiina baa jiray nationalista kooxo yasaariyiina baa jiray communism ama socialism ama ishtiraakiyo ama afkaartii reer bariga rumaysan kooxo islaamiyiina baa jiray dad culamo oo muslimiin ah iyo ururo islaamiya iyo dad muslimiina xornimo doonkii ka qayb galay ilaa iyo haddana soo jiray kooxahaasi afkaartaasi guud waa la isku raacsan yahay laakiin maxaa see loo fasirayaa maalan waxda midnimo see loo fasirayaa maalan kooxihii qowmiyiinta ahaa waxay rumaysanaayeen basharku inuu qowmiyad isu raaco alqowmiya alcarabiya oo kale alqowmiya asoomaaliya oo kale maalan soomaalida dadkeedii nationalistka ahaa ee xornimo doonka ahaa waxay rumaysanaayeen wax la yidhaahdo asoomaali alkubra soomaalida weyn oo ay u arkayeen qoomiyad isku afa oo isku luqada oo isku dhaqana oo isku hiddaa oo isku diina oo israaci karta oo xornimo wada qaadan karta in la wada raadaceeyo waxay rumaysnaayeen in horumar la sameeyo siiba horumar cilmiya dabeetana waxaa bilaabmay schooling systemkii iyo waxbarashadii iyo rag qowmiyiin oo soomaaliyeed bay ahaayeen wixii bilaabay in iskuulla la furo in tacliin la furo in wax la barto aqoonta dadka in kor loo qaado waxay rumaysnaayeen in la xoroobo oo
ummaddu dhaqaalaheeda siyaasadeeda diinteeda caqiidadeeda waxeedaba ay xor u noqoto oo mustacmarka la saaro qoladii gobonnimo doonka hore ahayd ama dowladnimada dhalisay ama fikradoodu taasay ahayd qoladii inqilaabtay even haddaan nimaadno kacaanku scientific socialism wuxuu u bixiyo qaatay aragtidiisa dambe markaynu ka nimaadno saddexdan qaybood isna waa rumaysanaa uun qaabkuu fuliyey ha dambayso laakiin in soomaali weyn la raadiyo dee dagaalaabuu u galay waa u halgamay soomaali weyn buu raadacaynayey waxbarasho iyo cilmi in kor loo qaado af soomaaligu u qoray jaamacaduu furay iskuulluu badiyey cahdigiisii wax badan buu ka geystay oo horumar buu raadinayey in la xoroobo isagu wuxuu arkay reer galbeedka iyo kuwa in laga xoroobo shuuciyadda lala xidho oo aragtidaa la qaato islaamiyiintu hadday tahay culammadii soomaaliyeed ee u soo halgantay xornimada ummadda tan ama u soo dagaalantay ama ururadii islaamiga ee wakhtiyadaa hore dhashay waxoo dhamme waxay raadcaynayeen in isticmaarka la iska kiciyo iyaga aragtidoodu in badan waxay u janjeedhay xagga midnimadu inay dawla islaamiya ama khilaafa islaamiya ama caalamulislaami in lagu xidhmo oo dib loo soo celiyo oo waxdinimadu way ka weynayd iyagu aragtiday arkayeen inta soomaalida ah marka la eego waxbarasho iyo horumar iyo kan madaaris cilmiya iyo kuwa sharci iyo kuwan bay wadeen iyagoo rabay ummadan jahliga laga saaro waxay u arkayeen xorriyadda rasmiga inay tahay basharka in lagu xoroobo oo ilaahay oo qura addooma loo noqdo caqiidatu tawxiid la dhiso sharciga islaamiga la raaco waxaan uga jeedaa marka erayadan sida loo sharxaya ama loo fasiraya ama marjaca loogu noqonayo iyo meesha masaadirta waabaa lagu kala gedisnaa laakiin cumuuman fikradda in ummadda wax la taro waxaad moodaa dadku inay wada rumaysnaayeen wakhtiyadan dambe waxaa iska badatay aragtida mu'aamaraadka inta badan lagu saleeyo aanu waxaan odhan karaa dad badan oo dadkaa ka tirsanaa waxaan u arkayaa inay ahaayeen dad nowcun maa daacad ahaa laakiin daacadnimo waddadoo aanay sax ahayn dee meel ma gaadho daabad mabaadi'daada daacad u tahay laakiin aanay ahayn kuwo ku salaysan wax rasmiya kufkaa iska tira bata ma wada odhan karo dadkaasoo dhammi dabadhilif bay ahaayeenoo gaal bay ku xidhnaayeen kanbay ma wada odhan karno waa aragtay qaldantaasi bay ilatay dad badanoo fikrad saxa wataa jiray laakiin waxaan odhan karaa meelaha afkaarta laga soo qaadanaya ama lagu tiirsanaa ama waxa kane ay ka soo burqanayeen ayaa dad badan maraajicdooda qaldanayd ninka scientific socialism ku tiirsanaa waxaan garan karaa in masaadirtiisa iyo maraajicdiisu ay aad u qaldanayd hadda wakhtiga kan xataa cilaajkii mushkilaadkii koowaad ee markii hore adyaafta siyaasiga kala gedisnayd kii nationalistka ahaa ee qowmiga ahaa kii socialistka ahaa kii islaamiga ahaa wixii ay markaa isku waafaqsanayeen ama isku meesha ka arkayeen iminka waxaad moodaa inaanay isku meel malaa laga arkaynin su-aashaan isweydiinayna waxay tahay war soomaalidu afkaartaasoo dhan haddaynu hoos u dhaadhacnay iyagu miyay ka wada tanaasuleen hadda fikradda jirta caalamka soomaaliyeed waxay u badan tahay ama caalamulislaami in la sii kala gogo'o la sii yaraado la sii yaraado la sii yaraado ay u badan tahay in kor loo koro uma badna dunidu kor bay u koraysaa sax dunidu qowmiyaadkii yaryaraa xataa nationalistka ah bay ka baxaysaa oo qowmiyo ka weyn bay ku sii socotaa waayo dunidu waxay fahamtay maanta Germany iyo Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani oo kala qowmiyaad ah haddana waxay dareemeen masaalixdooda iyo danahooda caalamiga inaanay ilaalin karaynin dawladina kaligeed iyagoo lacag loo dhaqaalo loo kan leh waxay u arkeen aragti ah nawcun ma inay Yurubta weyn sameeyaan oo qowmiyaad kala nooc kala afo kala waxay ku jiraan si ay u ilaashadaan masaalixdooda guud ee uu ninka cadi wadaago ama ay leeyihiin caalam islaami laakiin wali wuxuu u sii socdaa xaga kale gaar ahaan Soomaalidu waxay u sii socotaa in la sii yaraado waxa ka lamida
waagii hore fikradda taale waxay idin la xoroobo oo dadku dhaqaalahooda siyaasadooda caqiidadooda mabaadi'dooda wuxooda ay xor u noqdaan waxaad moodaa taa lafteedu hadda inay xagga kale u janjeedho oo soomaalida in badan oo ka midii waxay raadinayaan almujtamac duwali iyo dowladaha caalamku hana soo gaadhaan militariga dunida hana loogu yeedho hadda wakiila lahaa naga baxo markii hore xorrimadoonku wuxuu ahaa ha baxaan waxaan waddanka u dhalani waxaan soomaaliya waddanka ka baxaan isticmaalku ha naga baxo baabkaasaa loo fakarayay hadda waxaad moodaa masaladu waa cagsiga mujtamaca duwaligii hana soo gaadho dowladaha afrika iyagad ha soo cararto ciidamada dibadda ha la keeno waa hana la isticbaadsada baad moodaa inay qadiyadu u socoto halkay awal ahayd inay dadkani xorriyad raadinayaan iyagu inay yeeshaan qaraarkooda kaba dambaysta ah halkii laga fakarayay nahda in la sameeyo horumar aqoon cilmi technology wax la koriyo waxaad moodaa in lagu bedelay dagaal iyo isdil iyo burburin iyo madfac iyo hoos u sii celin su-aashu markaa waxay tahay war wixiiba xagga kale u fooraraane ما المخرج that's the question marka aniga muxaadaradaydu marka intani waa muqaddama laakiin waxa isweydiinta le waxa weeyaan ma jira way out exit tunnelka soo ma taqaanay nafaqa baalkan madow ee dhulka hoostiisa la maro mid madow aan leyd lahayn baa la hayaa meel uu ka baxayana la garan maayo war ma jira meel yaroo laga waacdo laga bixi karaa على الأقل إفكون أنا صباحنا تون الكن مدو ما لقى صباح كرا نفقة كان والسؤال شيء سويدين تله بس السؤال ده حيوك تاي يعني دبت طالة حرية دي كان دا يدتك وحمرة يا إمك حرب الوجود وحنوران كره ضد كان بدها كمر دايم حيوكم مردين وينو النور هذا برادينية dadkan qaxay ee dooyaha fuulay ee maranaya ee la leeyahay doon baa degtay badda inta ku qarqo saxaraha liqay waxa maxaa sii wada waa cala laqal nafsi bay ka taagantahay bal sidoo noolaan lahaa buu ka fakaraya aqliyada Soomaaliyeed markaa ma waxay ku gabagabowday qofku sidoo noolaan lahaa mid bad ka dhacaya mid saxara ka dhacaya mid meel kale ka dhacaba inuu xalku intaasi noqdo haddaynu su-aasha isweydiino sidii filosofariska aynu noqonnaa filosofariska waxay yidhaahdaan jawaab falsafi ma jirta bay yidhaahdeen ay mas'ala filosofaris ay isweydiiyaan hadday 10 yihiin jawaabuhu hadhow 10 way ka bataan bay yidhaahdaan qaanuunyahanada la mid ah bay yidhaahdeen ay 10 qaanuunyahan buu mid ka mid yidhi hadday meel isugu yimaadaan masalada jawaabta ka bixi waa qaanuunkaanka ilaahay ku tiirsanayn jawaabtu waxay noqotaa buu yidhi 10 kaasi inay 11 jawaabood bixiyaan yani way ka badataa waxaynu u aragnaa hadda in mujtamaca Soomaaliga uu muuqdo dad naxariistiya raxmadda mujtamaca duwaliga ilaalinaya raadacaynaya dad inay xorriyadooda ay u keenaan dad dabadeed sugaya quraankan ilaahay wuxuu inagu baray subxaanahu wa ta'ala ummad hadday dhibi soo gaadho dhibtu inay iyada ka timi xalkuna markaa inuu iyada ku jiro saxaabadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam la socotay markii ay jabeen ghaswatu uxud ay yidhaahdeen waxa kani siday u dhacday qul huwa min cindi anfusikum baa loogu jawaabay lama odhan quraysh baa idinka taagti ka badnayd waa idinka xoog badnayd waa idinka xoolo badnayd waa idinka rag badnayd lama odhanin khaalid baa idin khiyaamayo meel kale ka soo baxay trickska la idinku dhigay ayaa tiraba waxa lama odhanin waxa la yidhi qul huwa min cindi anfusikum haddii ay jiraan maanta dawlado dabadeed oo faragelin xoogan wadanka ku haya ama ummadda Soomaaliyeed ku haya haddii ay jiraan mujtamac duwaliya oo qadiyada Soomaaliyeed ku xoogsanaya haddii ay jiraan la yaabi maayo waayo wada dantooda raacanaya qofka bini aadamka ee dantiisa isagu wuxuu maslaxa u arka raacanaya ceeb maaha cadaalad maaha idin maan odhan ceeb maaha marka dhaqanka umamka lagu eegayo idan lama yaabayo inuu raadceeyo laakiin waxa ceebtu tahay qofka isagu dulman ee cid kale naxariisun ka sugaya aan garanaynin suu xalkiisa u raadsado
haddaba waxaan leenahay atyaafta siyaasiga ee xaldoonka maanta waxaa ka mid ah kuwa kale ka hadli maayo waxaa ka mid ah kuwa islaamiyiinta ah ama kuwa u nisbo sheeganaya le annaga marjac iyaga iyo meeshaan u noqonaynaa waa kitaab iyo sunne mashkilaadka ka jira caalamka islaamiga ama soomaaliyeed xal baanu haynaa qaarkood maraakis alqiyaada bay soo gaadheenba meelihii wax laga tawjiihinayay ama wax laga maamulayay ama wax laga wada bay soo gaadheen waxaan odhan karnaa maanta iyaga ah cala almaxak malaa aad hore looguma tijaabine hadday tijaabo weyn saaran yihiin dadka badh way niyad jabeen waxay is leeyihiin siyaasiyiintii hore waxba laga waa qoomiyiintii waxba dhali weyday yasaariyiintii tawraddii waxba dhali weyday qabiilkii lagu noqday waxba dhali weyday jabhaddii waxba dhali weyday dadku wuxuu islahaan bal kuwaa wadaadadaa talow iyaga wax ma ku hadheen iyagiina hadda malaa tamakhadat iljabalu fawaladat fa'ran miyay marayaan yacni waxay soomaalidu carabta waxay ku maamaahdaa buur baa foolatay bay dhahaan buuri hadday foolato dee waxaad sileedahay wax buur leegumay dhalaysaa laakiin carabtu waxay dhahaan buur baa foolatayoo jiir bay dhashay bay idhaahdeen mayay iyaguna qaabkaa u socdaan talow mise xal baa laga rajaynaya inay xal yimaadaan horta mid shakiga ka saara islaamku tajribo kuma jiro islaamku kitaab iyo sunnuhu inay sax yihiin inaanay saxayn inay wax maamuli karaan inaan wax maamuli karin in lagu badhaadhi karo inaan lagu badhaadhi karin tijaabo kuma jiraan waayo 1000 sannadood bay dunidan ka talinayeen 1000 sannadood baa dawla islaamiya hiya dawla lula fi alcaalam ay ahayd cilmi ahaan aqoon ahaan cadaalad ahaan dad ahaan nolol ahaan wax walba ay ahayd nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa tijaabada galay ku guulaystay saxaabadiisii baa gashay ku guulaysatay taabiciintii baa gashay ku guulaystay ummadihii ka dambeeyey muslimiinta galay ku guulaystay idan dadka badh baa isla armaa wadaadadaas hadday fashalaan islaamkii oo fashalay war islaamku ma fashilin wadaadda niman la yidhaahdaa fashilay bashar min albashar ka mid ah oo dadaalay baa dadaalkoodu halbacaad lagu lisay noqday laakiin qur'aan iyo sunne ama mabda'a kan islaamiga maaha ka fashilaya idan iyada mid ilow inaad leedahay islaamkii maanta dee isagiina la tijaabiyey isna waxba keeni waa waxba kama jiraan isaga waa la tijaabiyey waana lagu liibaanay waana lagu soo dhaqmay mana aha shay hadda ku jira tajribo oo la isweydiinayo war haddii la qaato ma lagu liibaana mise laguma liibaano ma aha islaamku waxaase tijaabada ku jira wuxuu yahay dhalinta soomaaliyeed ama carbeed ama caalamulislaami ka jirta ee islaamka maanta u nisbo sheeganaysa ee ku dadaalaysa sheeganaysa inay soo celinayaan ku dhaqma diinta islaamiga ahi ma yihin dad mu'ahal u ah inay qiyaadada qabtaan oo islaamkaa soo celiyaan oo ku mise weli may bislaanin ma markay mucaaradka ahaayeen ee nusuusta theoryga masaajidda ka akhrinayeen ee sheegayeen unbay sax ahaayeen markii la tajribeeyey armay cursigii libaaxyadoo kale noqdaan waa maqasheen qisada kale ay yidhaahdaan libaaxyaha aroos dhigtay bay yidhaahdeen dabeetana iyagoo arooskii ka cayaaraya ayaa jiir ku biiray bay yidhaahdeen markaasuu la cayaara libaaxyadii way seegeen waxay dhahdeen war adna maxaad ahay wuxuu yidhi amba intaanan arooska dhigan libax baan ahaan jiray buu yidhi beri un baan aroosa dhigtoo noocan baan soo baxay markaa idinna xagga u sii socotaa buu leeyay wadaadadu intaanay arooska dhiganin arma iyaguna caynkaygi su-aasha aan rabo markaa inaynu isweydiinna waxay tahay islaamku tajribo kuma jiro laakiin wadaadkaa tajribada ku jira su-aashu waxay tahay meeshan la taagaya haddaba xal ma la hayaa meel laga baxaa ma jirtaa ma almakhraj kolley sheekh maxamed oo dhinacayga fadhiya haddaan weydiiyo ma almakhraj dee waa xaafido wuxuunba odhan doonaa waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqu min xaytu laa yaxtasib
ninkii ilaahay ka cabsado subxaanahu wa tacaala ilaahay baa wuxuu u furaa makhraj. su-aashii markaa waxay tihi kayfa nattaqi illaah. waxa la isweydiinayaa wuxuu yahay waar waxa kan xalma loo hayaa. kollay dadku waa muslimo waxay odhan doonaan nacam alkitaabu wasunna, xal waa loo hayaa oo waxa weeyaan maxay? waa kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin waxaynu leenahay waxaynu u baahannahay waa jawaab mujmala, waa sax, jawaabtii sax ahayd weeyaan, taasaan rumaysanay. makhrajku inuu yahay waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xaysu laa yaxtasib. makhrajku inuu yahay xal kasta oo mushkilad kasta oo dunida ka timaada alkitaabu wasunna inay xalkii u yihiin. laakiin su-aasha isweydiinta le u baahan inaynu isla egna waxa weeyaan sidaynu jawaabta uga hellaa haddaba kitaabkiiyo sunnaha. kitaabkiiyo sunna way qoran yihiin, innagaa laynooga baahaya inaynu dadaallo o ijtihaadno ka keenno jawaabtii saxa ku ahayd kay tahay. eray kale haddaan isticmaalo waxaan leeyahay sidee baynu u tabiqi karnaa nolosheenna waaqicigaa u gaadhsiin karnaa inaynu nadariyo ka baxno oo taطbiiq camaliya tagno. yacni shaygu marna waa theory, waa aragti, marna waa wax practical loo bedelayo nolosha, nolol maalmeedka, siyaasadeed, dhaqaaleed, ijtimaaceed la rabo in lagu maamulo. sidee baynu ugu bedeli karaynaa? ugu horrayn culammadu waxay idhahdaan masalada wixii cilmi ku saabsan nihaayat اlcilmi bay yidhahdeen atawxiid, oo isagu bay yidhahdaan laa yatabacad. tawxiidku iyo caqiido saxa inaynu hellaa iyagu inaynu kitaabkiiyo sunna akhrino oo baranno. caqaa'iddu waa wax qofka maskaxdiisa dega iyo qalbigiisa, qofna lama xukumo. qof kastaba si rasmi u tabiqi karaa caqiidada dhammaanteed. waxay idhahdaan nihaayat lcamalkuna waa attaqwa. camalka practicalka shaqada ee la qabtaa taqwu ku gebagabaysmaa. laakiin taqwada waxaa la yidhaahdaa bay idhahdeen waxay ku dhisantahay mabniyatun cala alistiطaacati wاlqudra. inta la awoodo islaamka oo dhammi qof walba waajib kuma ahe, qof walba intuu awoodaabaa islaamka waajib kaga ah. inbaa qofka islaamka ka saaran. ilahay wuxuu ina leeyahy faاtaquu اllaha ma اstaطactum laa yukallifu allahu nafsan ila wuscaha laa yukallifu allahu nafsan ila ma aataaha. qofna ilaahay subxaana wa tacaala ma kallifin baa la yidhi intuu awoodo mooyaane, intii la siiyey mooyaane. ilaahay ka cabsaa lagu yidhi intaad kari karto. waxaan u baahnay markaa inaynu dhowr masalo eegno. islaamka qaybaha qaar nusuustaa ku badan, ijtihaadkuna wuu ku yaryey ama maba jiraba. qofka kitaabka iyo sunnaha si fiican u akhriyaana masaa'ilkaasi si fudud buu u fahmi karaa. waa masaa'ilka caqaa'idka ku saabsan. caqiidadu war nin uma baahna. qur-aan iyo xadiid baa loo hayaa masale kasta, waana wax qalbiga bini aadamka gala. cibaadaadku inta ugu badan war nin uma baahna. salaadda waxaa laga yaabaa far la taagayo nusuus baa la hayaa. in meeshaa farta la taagaya inaan la taagaynin xadiis baa soo arooray. nusuustaa ku tiro badan. ijtihaadaadku waa wax yar haddaabay jiraan. masaa'ilka bay yidhahdeen akhlaaqiyaadka ahi ijtihaadiyana inta badan uma baahan, nusuustaa ku badan. abwaabtaasi marka la joogo nusuustu aad bay u tiro badan tahay. abwaabta bay yidhahdaan see mucaamalaadka ku saabsan, nolol maalmeedka caadiga ee dhaqaale leh, siyaasad leh, bulsho leh, ijtimaac leh, cilmi leh, nooca kan leh. nusuusta abwaabtaa ku soo aroortay way koobantay, way ka koobantay ta kale. waxaa ku badan ijtihaadka iyo baadidoonkeeda. haddaba waxaan rabaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisu si fudud bay ugu dhaqmeen oo u fuliyeen. innaguna mar kasta waxaynu nidhaahnaa waxaynu u baahnay kitaabkiiyo qur-aanka inaynu qaadanno si aynu u fahmnana calaa manhaji salafi saalix
ummaddii hore muslimiinta ee wanaagsanayd ee saxaabo lahayd ee taabiciin lahayd ee raggaa lahayd sida ay ugu dhaqmeen unaan ugu dhaqanno. waxaan se rabaa inaan masale idiin sharxo. waa maxay faraqa u dhaxeeya wadaadka maanta nool iyo saxaabigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu soo saaray? waa maxay faraqa u dhaxeeya madrasadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam uu dadka ku tarbiyeeyey iyo madaarista maanta joogtaa qaabkay u tarbiyayso? ma ka warramayo nebi moxamed de inuu ilaahay doortay calayhi salaatu wasalaam oo uu rasuul ahaa oo dee diintaba kii lagu soo dejiyey u ahaa. masaladaasi kama warramayo. waxaan ka warramayaa mas'ale ah madrasadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd madraso tatbiiqiya oo waaqiciya ama nolosha lagu dabaqo oo ku jaan go'an wakhtigii uu noolaa iyo mushkilaadkii yaallay. taasi waxay keensatay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaada. eraygaa u fiirso. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo saaray qaadada soo ma taqaaniin? hogaamiyayaal. saxaabada nin waliba halkiisuu hogaamiye ka ahaa. dad mansile hogaamiye wada gaadhsiisan buu soo saaray. nebi moxamed muu soo saarin calayhi salaatu wasalaam arday shahaadada sidato doctor iyo magister iyo ijaaso iyo waxaasi tama soo saarin. innaga madaaristeenna waxay soo saaraan dakaatiro iyo shuyuukh iyo wixii la mid ah. ma alfarq? maxaa u dhaxeeya? faraq weyn baa u dhaxeeya. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qur-aanka iyo xadiidku waxay ku soo degayeen 23 sannadood. madrasadaasi waxay socotay oo lagaga takharujay 23 sannadood. saxaabadu 23kaa sannadoodba waxay ku jireen tababar tadriib camaliya. hadday caqiida tahay, hadday siyaasad tahay, hadday iqtisaad tahay, hadday ijtimaac tahay, hadday nusuusta si practicala bay u fulinayeen, ay ula dhaqmayeen. noloshii ay ku noolaayeen ama bulshooyinka ay la noolaayeen si fiican bay u fahamsanaayeen oo iyagaaba ka yimi. waxay ahaayeen dad ah job trained, shaqaa lagu tababaray ilaa iyo ay takharujeen. innagase wadaadku masaajid buu fadhiyaa, qur-aankuu kala furaa, musxafka ama bukhaari buu akhrinaya. hadday waxaasi dhacaan nebiguba saasaa ku dhacday, saayo saasuu yidhi, caynkaasuu yidhi, caynkaasuu yidhi, caynkaasuu yidhi. nadariyaa la akhrinaya, theory, nadariyaad baa madaxaaga gelaya. laakiin waaqaca markaad la tagto sidaad u tabiqi lahayd mas'alo kale weeyaan. waxaynu isweydiinaynaa maxaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ma kitaabka iyo sunnadoo kuusan mar loo dhiibo oo uu dabeetana masaajidka la fadhiisto oo uu dabeetana dadka u sharxo? soo sharxiisu kama fiicnaadeen keenna? haddii kitaabka qur-aan oo isku dhan nebiga inta loo soo dhiibo calayhi salaatu wasalaam uu kaabada la fadhiisto uu dabeetana sharxo oo uu dadka u dhigo, si fiican bay dadku u fahmi lahaayeen. ilaahay subxaana wa tacaala sidaasi ma doorannin. waayo waxay leenahay saasi waa nadariyaad, waa academic, waa dad ama jaamacad la geeyey ama masaajid la geeyo tiyari loo akhriyey weeyaan. ilaahay baa ka jawaabay masaladana wuxuu leeyahay qur'aanka: waqaala aladiina kafaruu lowlaa nuzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida kadalika linuhabbita bihi fu'aadak waratalnaahu tartiila walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi waaxsana tafsiira. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala kuwa gaaloobay baa waxay leeyihiin nebi moxamed intuu kolba odhanaya calayhi salaatu wasalaam qur-aan baa igu soo degay, waxyaa soo degay, maa mar kitaabkiisa loo wada dhiibo isagoo kitaab sita muu yimaado. ilaahay baa wuxuu leeyahay kadalika yalamru kadalik, arrinku saasaanu kuugu kala farqinnay oo qayb qur-aanka u soo dejinaynaa. waayo linuhabbita bihi fu'aadak waratalnaahu tartiila walaa ya'tuunaka bimathal, inaannu qalbigaaga ku dejinna baa ilahay yidhi oo ku sugno. waxyaabaha sababtaa waxaa ka mida ilaahay wuxuu leeyahay arrin lama imanayaan
ilaa iyo xaq baan soo dejinayaa arrinkaasi waxa sax ee laga samayn karo iyo xaqiiqada dhabtee uu yahayna si fiican baa loo fasiraya. yacni saxaabadiiyo nebigu waxay ahaayeen nolosha intay tijaabiyaan ayaa ilaahay samada uga soo fatwoonaya waxay sameeyeen inuu sax yahay inuu qaldan yahay. kaasi waa qaldana ka weecda. waxa qur'aan saxaabo lagu canaananayo soo maydaan arag. maalan uxud baa la dagaal galay, ilaahay baa qur'aan soo dejinaya le minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira. baa nebigu waxbuu tijaabiyey, ilaahay baa qur'aan soo dejiyo le cabasa watawalla an jaahu lacma. yacni waxa allaaliyo waxaa sababu nuzuul laydiin akhriyo ama sababu wuruudi alxadiid. sababu iiraad alxadiid maaha, sababu wuruudi alxadiid. culamada waxay sheegaan xadiidka midna waa ninka wariye ee xadiidka warinayay sababtii ku kaliftay inuu sheego. inta badan dhacdooyin baa dhacayay, dhacdadani markay dhacdo saxaabigana xadiidka sheegayay. midna waa xadiidku sababtu ku yimi oo ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam sababtii ku kaliftay inuu warka kan sheego. waxaa sababu wuruud alxadiid ah ama asbaab nuzuulka qur-aanka ku soo aroora uu qur-aanku ku yimi oo dhammi waa dhacdooyin nololeed oo practical oo jawaab laga bixinayo. saxaabadu nebi moxamed markaa waxay la noolaayeen calayhi salaatu wasalaam isagoo dhib ku jira iyo isagoo badhaadhaysan, isagoo dagaal ku jira iyo isagoo nabad ku jira, isagoo heshiisyo gelaya, isagoo tamar yar, isagoo xoogaystay, isagoo laga xoog badan yahay. waxaasoo dhan oo nolol practicala bay galeen. dabeetana mashkilad kastoo timi ilaahay baa ka jawaabaya. yasaluunaka can kada baa lalahaa qul illaahu yuftiikum baa lalahaa. allah ka fatwoonayay dhibaatooyinkan dhacday iyo waxay tahay. taa macnaheedu waxa weeyaan saxaabada waxaa lagu tarangareeyey inay fahmaan maxaa caqiidaa maxaa siyaasa ah. maalan markaan leeyahay maxaa caqiidaa maxaa siyaasa ah, caqaa'idu waa ideology lagama dhaqaaqo, isbeddel kuma dhaco. qadaayaadka siyaasigii laakiin musaawama bay aqbalaan. waa la gorgortamaa, awooddaa lagu xisaabtamaa. mawaaqiftaad istaagaysa awooddaaday ku xidhan tahay, gorgortan bay ku xidhan tahay, waxa lagu ogolyay ku xidhan tahay, waxaad raadinaysay ku xidhan tahay, wax badan bay ku xidhan tahay. haddaad mawaaqifta siyaasigaa caqiida u qaadato ka warran, wixii gala waad gaalaysiinaysaa dee, ilaan waa masale caqiide baad ula kacday. laakiin saxaabadu si practical iyagu u galeen. musaawamaad buu nebigu galay. waxay saxaabadu si practicala u barteen maxaa qaanuuna maxaa akhlaaqa, maxaa akhlaaqiyaad iyo wacdi iyo tarshiid lagu daweeyaa, maxaase u baahan in maxkamad iyo qaanuun iyo sharci lagu daweeyo. saxaabadu waxay si fiican u barteen alwalaa walbaraa. maxaa caqiide oo laysku jaraya, maxaa musaawamo aqbali kara. waxaan leenahay masaa'ilkan markaynu tilmaamayno waxay ahaayeen dad shaqo galay, dabeetana shaqo kastoo ay qabteen wixii ka saxa iyo wixii ka qaldanaa ilaahay uu sheegay. shaqooyinkay qabanayeen oo dhan baa ilaahay wuxuu sheegay. intaana waa qaldanaydeen, markan waad saxsanaydeen, tijaabadaa waa ku guulaysateen, taasi sax may ahayn, waddadayna ka weecataan bay ahayd, waxaa laydinma ogola. nolol caadiya bay ku jireen. walidaalik saxaabadu may ahayn ardo iskuul dhigata may ahayn, dhaliyo bogsito nusuusuun qoro oo tiyari loo ururiyo may ahayn. taasi waxay sababtay markay soo baxeen inay noqdaan dad qaada ah. waayo ninkani xaqiiqooyinkan wuu soo taagnaa. maalan sulxulxudaybiya waxay soo taagnaayeen masaa'il iyaga ku adkayd marka kan oo ay malaa caqaa'idba moodi karayeen oo nebigu musaawamaad siyaasiya ka dhigay. sulxulxudaybiya heshiiska waa wada garanaysaa, wuxuu nebigu la galay calayhi salaatu wasalaam. ilaa iyo xad ay gaadhay inay magaca nebiga in lagu qoro waraqda heshiiskana ay diidaan. waa wuxuu nebi maxamed kula heshiiyey may bay yidhahdeen, nebinimada iyo rasuulka ay waxaa ka jooji, magacaaga ku qoro. bismi illaahi araxmaan raxiim qora buu yidha. waxay dhahdeen may, raxmaanka iyo raxiimka garan mayno, bismika allaahuma ku qoro, magaca alle, intaasumaan anoo garanaynaa bay idhahdeen. wuxuu arkayay masaa'ilkaasi musaawamaad siyaasiya inay tahy. wuxuu arkayay nebigu calayhi salaatu wasalaam
isagoo heshiisye galaya ayay isa soo taagayeen muslim la cadaabayo toorjar ku jira oo nabigu aqbalay inuu heshiiska galay kana uu yidhi wardaan uu heshiis baa ku jiraaye sabir oo ilaahay tala saaro yani markuu sulh xudaybiya nabigu heshiiska nimanka la galay ama jandal baa isa soo taago silsilada ku xidhan oo la toorjar garayo soo baxsaday nin xabsi ka soo baxsaday oo silsiladaysan oo dhibaato haysataa taagan isbir waxtasib buu nabigu ku yidhi sabir oo xisaabso ilaahay dartii u xisaabso anugu heshiis baan galee waxay saxaabadu joogeen iyadoo dagaal ay ku jiraan oo haddana saxaabada qaar ka mid ay heshiis galeen oo nabigu yidhi heshiiskooda u fuliya مثلا غزوة بدر markay dhacaysay xadiiskii saxiix muslimku wuxuu sheegayay xudayfa ibn al-yaman iyo abihi wada socda oo muhaajiriin soo socday quraysh qabatay markaas la yiri xaga ku socotaan markaas ay yiraahdeen madiina yathrib markaas la yiri kuma socotaan nabi maxamed ba ku socotaan yaani ciidankan aanu saynaa galeysaan kuma socono bay dhahay magaalada amsi galeynaa waxa lagu yiri heshiisna la gala heshiis bay la galeen heshiisku muxuu yahay nabi maxamed iyo ciidankiisa calayhi salaatu wasalaam inaydan u soo hiilineen oo soo raacinin nimankaa waa isgelaynaayeen labadii naasi way idin sii deynayna si inaydan gelaynin waa la galeen waa la sii daayey hadhow bay nabiga u yimaadeen waxay dhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo nimanka quraysheed waana qabteen heshiisna waxaanu ku soo gallay inaanan dagaalkaa kaala qayb gelin maxaa tala ah ونبي محمد وقتي وبهنا عليه الصلاة والسلام لقد تربدنا صعب قالوا إنه وطه كن عيدنا حق كلا جوجان وما لنتو كدوا عيني نبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي وهدات كوحدة يرهلاك الدنيا الدبل وجوع عبد مايو كوحدة سيهديها لك سنتو إله الدنيا الدبل وجوع عبد مايو دقال أنا كنت لقى لمباق بصدق وصحابة دين بدنا يشوكت مدينة وأنا صار راعين هذا يسقوا وحاصو مش مسألة النبي جاي ستاي كاتهاي أيوه حكيري نفي لهم عهدهم ونستعين الله بهم إيانا بلن كودان وفينيا دقال كان إلهي بانو كالميسان ياسكتك بكيري حذيفة دقال مقلين يا به تونا قبل يسكو هايو يعني وحنو قد جيدا صحابة وحي نولا يا نبي محمد يهود هشيس لقليا وحي نولا يا نبي محمد قريش ومشركين هشيس لقليا وحي نولا يا نبي محمد دولمات كجرو دقال كجرو دقال لميا waxay nabiga la noolayeen calayhi salaatu wasalaam waqti dagaal waqti nabadgelyo waqti heshiis waqti laga xoog baday wax walba sida daraadeed wuxuu nabigu soo saaray calayhi salaatu wasalaam qaada wax lagu tilmaamo hogaamiyayaal markuu nabigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ilaahay oofsaday abi bakar baa muslimiinta caalanka u qaaday عمر باك دبا قاضي عثمان باك دبا قاضي على كدبا قاضي رجي رجها باك دبا قاضي قارده الدنيا دور دم باي فرتين قاده باي هايه ما انتصه هنا waxaan joognaa casri islaamka nidaamka dawladnimo iyo nololeed oo dhan laga saaray oo la saaray ruufafka masaajid iyo maktabadaha sagoo qoran baa wax la dhigay halkan masaajidka gudihiisa iyo maktabaduhu kitaabka yaala waxa aan soo saaraa jaamacadda ardayga gala maqaacid aljaamacaad ka soo baxa ama masaajidda wax ku dhigta masaajidda ka soo qalin jabiya wuxuu soo baxaa arday theory soo bartay nadariyaad soo bartay laakiin nolosha waaqiciga aan waxba ka aqoonin ونظريات أكاديمية وثيوري علمية ما هي ثيوري فضل وثيوري علمية وصابرتي لكن نلش تجربكم عليه ما تجاب ثيوري كان مو قارن حد وحيابا بدنا وبهناين وكلا صاره تصال أنا دسينية theory iyo practical ka aan sheegay maxaa u dhaxeeya labadan eray afkaaleed ka sheegay maxaa u dhaxeeya mesela dhalinyarada inaan dambe waxa taqaani ma soo qabanaya kubadda cagta la ciyaaro team kubadda cageed baynu dhibayno sameeynaa dabeetana professor ku takhasusay kubadda cagta inuu keenna coach tababare caalamka ka ugu sareeyana waa keenna بروفيسور كوغو سريه كبدنا واكين لباتن انو عافماد قبو فيدو واوين ميل بينو كحرينا دبتنا وا اخرنا
alloo dhiga baynu dhih 2 sannadood bay ku akhrinayeen marna garoonka geeyaan oo liyaaqa badaniya iyo digdigtan la baraayo in jidhka la jajabiyo iyo si isu laba rogi lahaa marna kubadda iyo qaabka weerarka loo galo iyo qaabka difaaca loo galayo waa kan buu qodhay coachki tiimkan la ciyaarayna hadday tiimanka qaacidadka caynkaas ku ciyaaran yihiin ra'sul xarbaheennu waa mid afar dhexe afar dambe laba xaggana waka wixii buu sharxay wuxuu dhigay tiyariga kubadda lagu ciyaaro oo dhan nimankaasi markay khubaro ku noqdeen ee bahasha liyaaqa badaniya barteen ee wax wal barteen ayayna waxaan nidhi kaalay haddaba waxaa la ciyaaraysaan oo doorkan waxaan nidhi kaalay haddaba waxaa la ciyaaraysaan oo doorkan laydinku tijaabinayaa inaad la ciyaartaan Brazil imisaad rajaynaysaa inay goolal ka dhaliyaan yacni ninka kani theory-gii buu sidaa garoonku soo galay imisaa theory-gu maskaxdiisa ku xaadiraya markuu ninkaa ku soo baxo maya tuunal baad ka saartaa maxagaad kala imisuu ka fikeri kaynaya baad u malaynaysaa mise intuu fikerayaa baa kubadda laga qaadaya yacni kan laakiin theory-gaa badan loo akhrinin practical loo soo traingareeyey ee tiimanka lagu soo traingareeyey la soo waday qofka iyo qofkan theory-ga loo dhigay marka nolosha dhabta la isugu yimaado iyama wixiisu dhab yihiin yacni ninna wuxuu bartay wax practical ah si practical loo traingareeyey ninna wuxuu hayaa maxay theory buu haystaa nadariyaad buu hayaa taa macnaheedu waxa weeyaan aqoonta lagu qaato madaarista cilmiga ama jaamacaadka ama masaajidda ama waxaasi oo dhamme waa buxuuth nadariya laakiin marka ay timaaddo in si practicala loo kala saaro waxyaabo badan alwalaa walbaraa markuu caqiidayey iyo bayna atasaamux waltacaayush walmucaamalaat walmusaawamaat asiyaasiya waxaa marka la rabo in la kala saaro marka la rabo in la kala saaro waxyaabo badan oo nolosha tan ay u baahan tahay waa kala gedisantay waxaan leenahay qofku theory-ga xataa hadduu istaycaabo uu sido practically markuu fulinayo wax badan maalan xadiidka burayda ee saxiixu muslim ku yaalla saxaabigaasi burayda wuxuu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ciidan dirayo wuxuu fari jiray inuu nafiisana ilaahay uga cabsado subxaana wa tacaala muslimiintana caynkaa ula dhaqmo gaalada siduu la dhaqmo waxaasa la farayay xadiidka waxaa ka mid a uu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam amiirka uu dirayo idaa xaasarta ahla xisnin duul qalcad ama dhufays ku jira haddaad ka qabato maxay go'doomiso oo fa araaduuka an tunzilahum calaa xukmi illaah oo ay ku yidhaahdaan war waxaanu u soo dhaadhacaynaa ilaahay xukumkiisa waa isdhiibaynaa laakiin ilaahay xukumkiisaanu rabnaa inaad nagu xukunto falaa tunzilhum calaa xukmi illaahi buu nebigu ku yidhi ilaahay xukumkiisa ha u soo dhaadhicina ha ka aqbalin hadda maxaa laga aqbalaya oo saxaabigu nebigu dirayo dabeetana wuxuu leeyahay hadday ku yidhaahdaan ilaahay xukumkiisu baanu aqbalaynaa kaas ha yeelin buu nebigu ku yidhi oo maxay aqbal walaakin anzilhum calaa xukmik buu nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaa waxaan idinku soo dhaadhicinayaa xukumkayga oo waayo nebigu wuxuu yidhi fainaka laa tadri atusiibu xukma allahi fiihim am laa adigu garan maysid inaad haleeli doonto ilaahay xukumkiisa inaad kuwan ku haleeli doonto iyo inaad gafi doontee maxaa loo jeedaa adigu bashar baatoo waad ijtihaadi doontaa laakiin ijtihaadkaagaasi 100% inuu qur'aan iyo sunno waafaqsanyay ma hubtid masalada waad ka fatwootay sidii ay kuula muuqatay ijtihaadkaaga waa ka layidhi ninka mujtahidka hadduu khata'ana wuxuu leeyahay maxay ajar hadduu asiibana 2 ajar laakiin maa la huba inuu asiibayo mar haddaan la hubin inaad asiibayso ilaahay xukumkiisu mooyaane wax kale kugu qaadi maayo odhanni waxay masaladani tilmaamaysaa tanziilu nusuusi cala alwaaqic marka la yimaado waa ijtihaad culammadu waxay yidhaahdaan waa ijtihaadkii ugu badnaa ee culammadu samayn jirtayba waayo nusuustii haatan way soo wada degtoo diintii o dhamme way taalla laakiin in practically loo dabaqo waa masala ijtihaadiya tan maxaan uga jeedaa markaa islaamnimada ruufka saaran ee miisaska agtiinna qur'aanka yaalla in nolosha lagu dabaqaa
ومحاولة اجتهادية بشرية قد تصيب وقد تخطئ واسكدي بني آدم أو ربقف كمسلم كينو اسكدي كتابك قرآن إنه وافتشيه نلاش عادية إن هذا صيبتنا وصورتقل إن هذا محي كفتنا وصورتقل جوانب تربضا وقصور يجهل يخطأ بقفك بني آدم كاكو سوغان saxaabadu iyagu waxay kaga gadisnaayeen waxaan leenahay wax walba iyagoo practical loo soo tarangareeyay oo iskuul 23 sanadood hadiiba eraygaasi uu sax noqdo 23 sanadood wax la barayay ayuu nabigu ka tagay wuxuu ka tagay kaleey salaatu wasalaam iyagoo qaada ah wuxuu ka tagay iyagoo jiil loogu talagalay inay tusaale u noqdaan ummadda muslimiinta ee damboodhan duul amalkooda lagu daydo inay noqdaan inagu laba dhib markaa inaga ina wada haysta kowka koowaad islaamiyiinta maanta nool haysata waxa ka mid ah runta marka la isu sheego aqoonto yar qilatul ilm waliba ilm shar'i war xamaas iyo surwaalko la gaabsaday iyo gadhko la baxo quraanku uu ka tira badan yahay xadiiska nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo islaamka fahmigiisu naam wa sunnaday ka mid yihiin kuwa kani soo jeed tira badan dadku uu hayaa لكن انتبه الرسوخ في العلم يوجره انتبه الرسوخ في العلم يوجره أما وحنا ننكر عدم استيعاب النظريات العلمية نظريات العلم قال ما يستيعاب سفي عن لو غمدرجن الرقبة مركي أرتاد سفي عن صور تيم باب عررين انتهانوا عبين بقى واور صدايون kadibna wuxuu waan dabaqay maxad dabaqda ma baad ursanay ma baad liqinay waxa ka horeysay in sharciga si fiican loo fahmo in kitaab iyo sunna si fiican loo xambaaro walidalik baan leenahay saxwada maanta islaamiga caam ka jirta waxa ku yar mubdiciinta iyo mujtahidiinta iyo mufakkiriinta way ku yariyeen dadka raasukhay way yariyeen walidalik gafkooda uu tira badanaya cid kasto aan raasikhina rabta hadana inay wax dabaqdo waxaad naftaada ku dabaqaysaa ama kuf ama dhacdi ku jirtaa marka aad taadatay laakiin markaad bulshaweynta u baxdo waxaad ku dabaqaysaa rusukh cilmiya buu baahay boodbood iyo dhalinyaranimo uma baahna iyo xamaasad iyo quraankay ku taala qura uma baahna waxay u baahan tahay maxay rusukh cilmiya idan waxaan leenahay teen waa sax wa caama masaa'ilkii nusuusta ku badnaydna waa laga yaabaa saxeenu inuu ku bato مسائلك عقيدة نوع ما إن بدن للصح بدعة إن بدن لقد دركوا يدا ولي لقى يابو إن هريرة وحسك مرمرية مسائلك عبادات كائن دور الله الصحة لكن مركا يتكتو مسائلك بالشدو أي وداكته وبهنا اجتهاداتك ويري كو مركا محلي إسلاميين تمان تنالو حيستكو قلة العلم لبنا ومحي قلة الخبرة ما أنت هداد جامعة دكتورة كسوق هذا هندسة معمارية سيدا وحلوردسو أو دكتورة أو دبتنا ميل بيدان لوجين لوجيرا وحلا قربا سكاي سكرابس هنا دستوري سيدات طبقة أما بقول طبقة أترى هذا شهادة دي وجود بيسان ستة دونيدا لقى قاطع وطن هذا هو اللي قابل لما تشجور اسمه صارين تيرجو ما ديجان شرتي واحد شوكتون خلاص كي جامعة دوما تفردي intee laga rajo qaba adigoo tiyarigii oo dhan sida waanu ka maqnayn intee laga rajo qaba inaad skyscrabers dhisto waxay isweydiinta leen waxa noqonaysaa nooca hadaynu ku bilowno wuxuun baa la isweydiinayaa mid ay 5 dabaq kaga dunto markuu marinayo mid ay 20 kaga dunto mid ay 30 kaga dunto idan dadkeenu dilaynaa un ba kala badanaya ninba intuu shaqaalaha saaran meesha intay ku dumayso ayuma kala badanaya ilaa aqoontaad wadaa ما ها قوم practical ما ها قوم ما أنت إنه لبضن شيء بمركا ويري كو مركا كواد علميا لو ما استيعابين وحي لو باهنا إلا استيعابه أقونا هان لو مسيدو لبا تجارب ما جرتو سلام كواهر الله صاري ماشا هذا التجارب نلشان عصر جدا بقى هو يرطي ككلام كوتشرد بتتاجري وحوي يواجه هره dunidu way kala fogeyd waana kala xidhnayd waxaaga xataa hadaad meel iskaga tijaabsanayso meel yar oo iska gaara bay ahayd adiga ku gaara maanta dunida waa la isku xidhay waxay noqotay tuulo yar oo qura
qaraarka maanta cidi ay meel yar ka gaadho ayaa wuxuu raadaynaya dunida inteeda kale oo dhan. yacni waxay yidhahdaan siyaasadda maantu dhacdo kastoo siyaasigii bay yidhaahdaan waxay leedahay manduur maxalliya, mid iqliimiya iyo mid caalamiya. bulshada yar ay ka dhex dhacday waxa ay ku hayso iqliimka ama gobolka raadka ku yeelanayso, dunida dhammaanteed raadka ay ku yeelanayso, iyadoo aan laba daraasaynin oo la garanaynin in tijaabooyin la bilaabaa ilama qumana. maanta waxaan odhan karnaa qofka mid waa nadariyaadkii cilmiga ee kitaabka iyo sunnada ahaa, midna waa waaqicii la noolaaye lagu dabaqayay. waaqaca kani faham buu u baahan yahay, aragtidiisa siyaasiga, dhaqaaleed, ijtimaaceed, waayo adigoo aan tasawur saxiixa ka haysanin masaa'ilka uma helaysid fataawi iyo waxaad ku dabaqdo toona haddaanad masaa'ilka si fiican u garanaynin. walidaalik ayaa waxay tilmaamaan maanta masaa'il agtiinna basiid ka ah ayaa caalamulislaami waxaa culamo joogtaa inta isugu yimaada bay 6 sannadood fadhiyeen. bal qiyaas fiisa kaadhku intuu idinla leegi baalkan yare sidaa un loo mariyo ee lacagta meelaha bangiyada lagala baxo. mujamaca thaqaafiga islaami, mujamaca majmac ilcilmi, munadama mu'tamar alcaalam islaamiya ka raabita baa la keenay iyadoo fataawi laga weydiinayo culammadu. majmacaasi wuxuu caado u leeyahay, wuxuu leeyahay khubaro aqoonta kasta ee markaa la rabo in fataawi laga bixiyo looga yeedho. khubaraa loo yeedhay iqhtisaadiyiina waxa la yidhi bahalkan iyo rasmiyaadkiisa ka warrama. wax badan bay sharxeen. niman culamaa baa loo diro buxuud ka soo qora la yidhi. buxuud ay culammadu soo qorto waxa loo qaybiyaa nin sheekh kastoo caalami isagoo jooga gurigiisa iyo maktabadiisa iyo meeshiisiiba baxdigu u taga, commentski iyo wixii uu rabo inuu calaamadiyo dib u soo calaamadiyaa. dabeetana waa la isugu yimaadaa haddana dib baa laga niqaashaa. 6 sannadood baa 2 sannadoodoo kasta dib loogu soo noqonayay oo la niqaashayay. yani waa mas'ale agtaada basiidka ah. maxaad u malaynaysaa nolol dhan waan mujtahidba wadan iyo mid kitaabka eega toona? waxay u baahan tahay wax tiro badan leh. waxaan leenahay nolosha maanta joogta ilmaam xaqiiqiyay u baahan tahay oo siyaasiya oo dhaqaaleed oo ijtimaaciya, xarakati tadaafuc albashari inaad si fiican u fahamto. waxaan ku soo koobayaa qaybtan koowaad aan idin leeyahay muxaawalaadka ay wadaan dadka islaamiyiinta maanta dunida ku noole ama jamaacadka islaamiga waa ijtihaadaad bashariya. kow, islaamkuna ma aha waxa saaran miisaanka inuu qaldan yahay inuu saxan yahay la eegayayo waxa weeyaan raggan sitee maanta xambaarsan rag baa hore u tijaabiyo waa la hubaa ka ah. laakiin qoladan maanta sidataa inay tijaabadeeda sax tahay iyo inaanay sax ahayn weeyaan waxa meesha yaalla. tijaabadaas inay sax tahayna waxay ku xidhantuu labadaa shay oo ah intay cilmiga raasukhday shareecada ah iyo intay waaqaca ay nooshay qiimayn karto ee qiimayn cilmiya ay qiimayn karto. qiimayntu maaha raadiyoyada iyo tviyadaan soo dhagaysano dabeetana arrimuhu saasay u socdaan xaggan ka wada. waa qiimayn cilmiyaan rabnaa, qiimayn cilmiya oo si cilmiya loo daraasayn karo. haddaan luqadii ahlulcilmiga xaggooda u weecdo, waxaa maqasheen qur-aanka isagoo ilahay leh subxaanaه watacaala wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlardi kama istakhlafa aladiina min qablihim walayumakkinanna lahum diinahum aladi irtadaa lahum walayubadilannahum min bacdi khawfihim amna yacbuduunani laa yushrikuuna bi shay'a waman kafara bacda dalika faulaa'ika hum اlfaasiquun. waxaa laga yaabaa in ragga badh leeyihiin mustafa adunbay meel adag kaa gashaye wuxuu ma adka haye waa fududoo ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yidhi wacada allahu ilaahay wacdigiisuna waa mid la huba in la helayo. ilaahay wuxuu yaboohay aladiina aamanuu minkum wacamiluu saalixaat. labada shay unbaabana laga rabaa. waxaan kale adigu aad sheegaysaa waa maxay? labada laga rabaa waa maxay? aliimaan walcamal saalix. labadaa haddii la helo qur-aankay ku taallaa in maxay? adiga awooddaada maaha. ilaahay baa yidhi layastakhlifannahum. sax weeyaan. kow, aamanuu wacamiluu saalixaati in 50 jeer ka badan bay qur-aanku ku soo aroortay. waxaan filayaa labada lafdo isku xiga 52 jeer inay qur-aanku ku soo arooreen iyagoo kala baxsan ama mufrada ama kuwaas inay kasii tiro badan yihiin. su-aashaan idin weydiinaya waxay tahay aamanuu idin gartay goormuu camalku saalix noqdaa?
wadaadad baa wada yaqaanin soo maaha laba shartun haddii laga helaa odhan doontaan ama laba rukniyoon al-ikhlaas iyo almutaabaca sacankaa ma aha in daacadnima jirto iyo inay jirto maxay mutaabaca inuu leeyahay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii waafaqsan yahay waan gartay haddaba camalka saalixa midii waa bayin ijtihaadaadna uma baahna salaada soonka ilaahay dikrigiisa xuskiisa cibaadadiisa waa bayin ijtihaadaad uma baahna ama acmaali اlumma wa islaaxuhaa waxay u baahan tahay kow ijtihaadka tanziilu nusuusi cala alwaaqic hal antum mujtahiduun ijtihaadka tanziilu nusuus cala alwaaqic waxay ku xidhan tahay bay yidhaahdaan kow in waaqaca si fiican loo fahmay laba nusuustii masalada ka jawaabi lahayd inaad si fiican u fahamtay waxay ku xidhan tahay bay yidhahdaan inaad garan karto alistitaaca waalqudra ummadda awooddeeda iyo intay kari karto waxay ku xidhan tahay bay yidhahdaan inaad garan karto macrifa ma'aalaati alumuur marka waxaan la dabaqo waxa ka soo bixi doonay xataa ka dambeeya waxa uu yahay si kale haddaanu tilmaamo waxaan idin leeyahay acmaasha fardiga inteeda badan aamanu wacamilu saalixaadkeeda waa kula gartay waana fududay qof walbana waa waxa laga rabo qof walbana waa ka aakhiro la weydiinayo walidalik baa aakhiro jamc laynagu keeni maayo qof baa laynoo keenaya qof walbana tiisaa laga xisaabinaya ama acmaali lumma iyo islaaxi lumma markay noqoto mutaabaca inay hesho oo ay noqoto tii nebi maxamed mid waafaqsani waxay u baahan tahay in qadaayaadka siyaasiga iqtisaadiga iyo ijtimaaciga intaad si fiican u fahamtay nusuustii waafaqsanaydna aad si fiican u fahamtay ummadda aad rabto inaad ku dhaqdana awooddeeda iyo istitaacadeeda inaad fahamtay inaad markaa isa saartaabay u baahan tahay hal antum ma tihiin markaa kuwii taa samayn kari lahaa si kale haddaanu tilmaamo tusaalaan idin siinaya maalan diintu way soo wada degto way wada taallaa yacnii qur-aanka iyo xadiidku way dhammaystirayeen iyagoo maxfuuda sidoodii inoogu yaalleen haddii qofka bini aadamkaa diinta waxaa korkiisa saaran intuu awoodo sacanka maaha ummaddana waxaa korkeeda saaran intay awoodo maalan arkaanta salaadu cidina ma nasakhi karto cidina wax kama bedeli karto waa macruuf soo maaha maxaa ka mid ah sarajoogaa ka mid ah in sarajoog lagu tukado laakiin markaynu waaqaca daraasayno kumaa sarajooga ku tukada almustaiic ka awoodaa ku tukada nin buka haddaad u timaadoo tidhaahdo jiifa arkaanta salaaday ku jirtaa in la istaago adeer istaag haddaad doonayso inaad tukato maxaa soo baxaya nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu yidhi salli qaa'iman fain lam tastatic maxaa la yidhi fasalli qaacidan qaacidanku maxay ku xidhantahay inaad qofkan qudradiisa iyo istitaacadiisa inaad eegto sida qofku uu qudra iyo istitaaca u leeyahay ayay ummaddu qudra iyo istitaaca u leedahay ummaddu waxaanay xambaari karin haddaad tidhahdo ha xambaarto iyadaan weli u bislaanoo gaadhin waa intixaar siyaasiya waa ummadaad rabto inaad gowracdo oo ay dunto haddaanad waaqaca si wanaagsan u daraasaynin maalan ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inooga warramayaa laba nebi oo israacay cala araajix khadr iyo muuse khadr afcaal buu sameeyey afcaasha uu samaynaya muuse waa wada inkirayey amran iyo nukran iyo wuxuu ku tilmaamaya inaan wax la qaadan kara aanay ahayn kadib heshiiskii markii uu dhammaaday ayuu khadr sharxay wixii uu waday wuxuu sheegay ama safiinatu tusaale ahaan ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an aciibaha wakana waraa'ahum malikun yaahudu kula safiinatin qasba wardoonta buu yidhi waxaa lahaa dad masaakiinoo badda kaga xoogsada meeshanna waxaa ka dambeeyo xaggaa ay ku sii socdaan jooga nin boqora oo daalima oo doon qurux badan hadduu arko dadka ka qaada
markaa masaakiintan baan u danaynayay si aan doontooda looga qaadin ayaan looxa ka saaray si uu boqorku yidhaha taasi waa mid dalooshahay keenin oo kuwa la qaadayaanay ugu biirin kow daahirku muuse joogay waxay ahayd niman bilaash ku soo qaado sida xadiiskii bukhaari sheegayay nooli kamuu qaadanin qolada doomtu way soo qaadeen niman bilaash ku soo qaaday in doontooda la dalooliyo mulkul khayr inaad ku tasarrufta laa yajuus muuse wuxuu taagnaa war nimankan doontooda maxaad u daloolinaysaa waana sidii caadiga ahayd marka aanu ogayn waaqaca kan markii muuse loo sharxay dhibta jirtaa waxay tahay doontan loo dalooliyey oo masaakiinta iyamaa u faa'iido badan doon hal loox ka maqantay inay iska wataan iyo in doontaba laga qaado horta waxa u faa'iido badan doon hal loox ka maqantay inay iska wataan halkii doontoo dhan laga qaadi lahaa muuse markii loo sheegay ma murmay qur-aanku muran dambe oo muuse leeyahay ma sheegin that means markii uu waaqac ogaaday siduu yahay ayuu aqbalay in mulkul khayr tasarrufka caynkan ee ma'aalkiisu yahay inay doontani nabad gasho in la aqbali karo mushkilaadka yowmiga waxyaabo badan ba haddaanad guntooda ogeyn aan la garanayn si loo fasiri karo walidaalika matala nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu hurayra ee bukhaari ku yaallay nin baa u yimi qaylinaya wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo waan halaagsamay halagtu kii ilahay isrifayay ramadaanka u yimi oo maxaa dhacay buu nebigu ku yidhi walima wuxuu yidhi haweenkaygii baan gabadhaydii baan u galmooday maalin ramadaan buu islaantiisii iska fuulay waana saxaabi markuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku yidhi raqabad xore wuxuu yidhi ma haysto waxaa lagu yidhi 2 bilood oo isku xiga haddaba soon wuxuu yidhi ma karo maalin baaban adkaysan kari waayo ma 2 isku xiga baan suugi karaya ma awoodo wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaba 60 miskiin quudi markaasuu yidhi ma haysto wixiiba wuxuu iska soo taagay midnaba inaanu haysanin dabeetana meeshuu iska fadhiista nebiga calayhi salaatu wasalaam markii dambe loo keenay xoolaa la keenay dabeetana wuxuu yidhi war ninkii mee waa kan waa isa soo taagay wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam war qaado timirtaa qaado bixi iska 60kii miskiin iska sii dayaad kafaaraha kuu noqotee dabeetana haddana war kaluu keeno wuxuu yidhi wahal bayna laabatayha man huwa afqaru minni oo madiina ilaahay rasuulkiisiiyo ma wax aniga iga liitaa degan adigu wuxuunoo qaada buu nebigu ku yidhi ninkii dembiga galaa timir loogu daray yacni sharcigu kaasuu keenaya hadday duruuftu xad kaa gaadhsiisan tahay ninkii dembiga galay ayuu nebi maxamed timir ugu daray oo la yidhi mar haddaan lama haynin calayhi salaatu wasalaam wax kaa liitaana haddaanu magaaladaba joogin adigu qaado yani waxaan uga jeedaa waxaynu u baahanay 2 shay oo ah inaynu islaamnimada raasikhiin ku noqonno istaycaabno ahlu cilmi rasmiya inay dadku noqdaan iyo dhacdooyinka dunida ka jira inaynu fiqhi u yeelanno si fiicanna u fahmi karno garan karnana markaynu iyada si fiican u fahmno ayaynu garan karnaa shareecada maxaa ka qaabilsan haddaba haddii aynu rabno inaynu makhraj helno dhibta jirta in meel looga baxa la helo waxaan leeyahay dhowr shayba waa inaynu helnaa shayga koowaad waa in la helaa qiyaada calaa mustawa alumma aw calaa mustawa alcaalam hoggaan ummadeed oo ummad ama duni hoggaamin kara hoggaan waa in la helaa hoggaanku waa inuu yeeshaa sifaadkii qiyaadiga ahaa lagu yaqaanay qof qaa'ida haliyay ummadeed qof noqon karaya qur-aanka nebi yuusuf markii uu la yidhi waxbaa lagu dhibay innaka alyawma ladayna makiinun amiin markii la yidhi wuxuu sheegay in loo dhiibo meel dabeetana wuxuu sheegtay innii xafiidun caliim muuse markay gabdhuu lahayeen shaqada ha la siiya maxay yidhaahdeen inna khayra man istaajarta alqawiy alamiin qofku inuu aqoonna leeyahay ammaanana leeyahay baa muhima aqoonta iyo ammaanadu ma badna dad labadaba isku layn la helo laakiin mararka qaarkood waa nisab bay noqon kartaa maalan shaqadaad u diranaysay noqonaysa maalan haddaad
duuliya diyaaradeed u baahantay intee baad ammaano ka rabtaa intee baad si aqoon ka rabtaa khibro ka rabtaa waxaa laga yaabaa wadaad taqiya oo aan khibrad badnayn iyo mid faasiqo agasbeertku ah in shaqadaasi la horraysiiyo faasiqa agasbeertka ah waayo waxaa la raba in dee dayaradu intay halkaa ka kacda inay meel hebla ay fadhiisato in 30 qof ama 40 qof ama 100 qof lagu aamino inuu duuliyo iyo nin xaafida laakiin farsamadu aanay ku adkaynin inuu duuliyo kan baa labada lagu aaminaya mararka qaarkoodna isweydaarka kale ay noqon kartaa maalan wasiirulmaaliyaad qaadanaysaa cilmiga iyo ammaanadiisa waa inay ammaanadiisa horaysa hadduu tuugiyaya wax ku soo gaadhaya de oo kasta uu leeyahay waa in marka hore ammaanadiisu xoogantay kadib baa wixiisa kale la eegi karaa waxaan leenahay markaynu qiyaada ka warramayno nebi yuusuf calayhi salaatu wasalaam ma odhan inaan nebi baanahay ma odhanin nin qurux badanoo dunida ninka ugu qurux badan baanahay ma odhanin nin cafiif oo dumarka ka dhowrsoon baanahay wuxuu yidhi nin xafiidun caliim mu'ahilaadkii qiyaadanimadu sheegtay isagoo intan kaleba ahaa waxaynu u baahanay markaa qiyaadada ummaddu mucaasiriintu markay sisifaynayaan waxay idhaahdaan 3 shay qofku hadduu la'ya bay yidhahdeen isaga qiyaadaba ma noqon karo qof fishan le waa inuu ahaadaa bay yidhahdeen ru'ya cala almada albaciid dadku intay arkayaan in ka fog waa inaad arki kartaa waayo dadka haliyey baad u tahay hor socda idan intay arkayaan in ka durugsan waa inaad arki kartaa bay yidhaahdaan ama mustaqbalka waa inaad dorosi kartaa ama bay yidhaahdaan waa inaad garan kartaa awooddaadu intay leeg tahay iyo طumuuxaadkaaga inaad iswaafajin karto waa inaanad ku jirin maxay daydreaming kuwa yidhaahdaan dadka badh baa iyagoo soconaya riyooda bay yidhaahdaan isagoo soo jeedu riyoonaya oo soconayaba yacni waxaad u baahan tahay haddaad intaad halkeer ka qayliso tidhahda maraykankaan furanaya dee waad riyoonaysaa waxaad u baahan tahay daydreaming inaanad ku jirin waxaad u baahan tahay imkaaniyaadkaad haysato iyo waaqaca ku hor taagan inaad qiimayn karto idan waa nin ru'yala bay yidhaahdaan waa inuu noqdaa bay yidhahdaan qof iltizaam leh commitment wadaad waxuun sharxi yaqaana laakiin dabadda markay noqoto aan camalba fulin karin haddaad tahay isna waxba qaban kari maysid waa inuu qof committed ah oo multazima oo wax qaban kara waa inuu yahay waxay yidhahdaan almahaaraat alqiyaadiya ama managerial skillskii qof leh waa inuu yahay markaan waxoo dhan isku soo duuduubo waxaynu leenahay waxaynu u baahanay inaynu hello qiyaada calaa mustawa alumma hoggaan ah oo ku filan ummadda hoggaan baynu leenahay baynu u baahannay garan kara lucabka siyaasiga ee maanta la cayaaro lucabka siyaasiga muxuu ku falayaa waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo war qur'aan iyo sunna ninka looga baahayay maxaa looga baahayay waxaa looga baahan yahay dadkaad kubadda la dheelayso ninka kubad tiim wataa garoonka intaanu gelin wuxuu daraaseeyaa qolada ay wada cayaari doonaan meelahay xoogga u leeyahay tiimkaas iyo niqaati dacafkiisa iyo wixiisa askariga dagaalgelaya dagaalgelintiisa waxa ugu fiican inuu war ka hayo ciidanku la dagaalamaya waxay tahay si uu isku dayi karo inuu muxaayid uga dhigi karo maalan ciidan baa dagaalgelinaysaa markaasuu wuxuu wataa isagu dabaabado inta dabaabado ma haysatid waxay yidhahdaan caqliyaadka ugu fiican waxa weeyaan sidee baad u dagaalgelin kartaa iyadoo dabaabadiisu ay wax tarbeeshay isla waxay yidhahdaan buuraley marka la isla galo dabaabadi ma korto dan waad suuqaad ka saartay suuqii dabaabadu markaa ma yaallo waa dagaal baa la galay aan dabaabadii ku jirin haddaad laakiin bannaanka isula soo baxdaan dee waad maranaysaa idan waxay yidhahdaan qofku dagaalka cidda uu la gelayo siyaasadda waa dagaal dhaqaalo waa dagaal laba shirkadood baa loolamaya waa inaad taqaanaa shirkadaad la loolamayso istiraatiijiyaadkeediiyo si ay u fakarayso markaas baad geli kartaa loola baaca mushtar noloshoo dhammi waa nooca kan marka haddaad noqoto waxay yidhahdaan siyaasadda laba tusaale waa garanaysaan baan idin siinaya lucbatu shatranj bay yidhaahdaan iyo lucbatu nerd waa laba cayaarood oo la cayaaro waxaa jira nin gaaleed
oo dagaalkii labaad ee dunida ka horba wuxuu soo saaray nin xisaabiyahana buu ahaa wax loo yaqaano game theory oo ah sida loo xisaabiyo cayaaraha la cayaaro game theory-gii baa waagii dambe qadiyad cilmiya laga dhigay oo dhaqaalaha gashay oo militariga gashay oo iqtisaadka gashay oo ka gashay dagaalkii labaad ee dunida inta ugu badan bay dhaheen game theory-gii uu ninka mathematician-kii lahaa baa lagu galay waa maxay waxa kani laba ciyaarood baan idin sharxayaa maalan shatranj waxa ciyaaray ma leedin shatranjku waa ciyaartan jaska la yidhaahdo soomaalidu jar bay ciyaartaa ama shaxda ma ciyaarteen shaxdan odayada soomaalidu ciyaarto qofka shaxda ciyaaraya ama shatranjka ciyaaraya inta aanu tallaabo guurin ciyaarta markuu eego wuxuu idhahdaa kaa haddaad guurto muxuu soo guuraya isagu dabeetana wuxuu odhanayaa kaa wuu guuri karaa kaa hadduu guuro maxaad samaynaysaa xaggaasaadna ka guuraysaa kaa kale hadduu guurona xaggaad ka guur waxaad xisaabinaysaa inta tallaabo ee ninkan u suurtagala inuu guuro waa inaad jawaabteedii garanaysaa mid walba sidaad uga jawaabi lahayd odayga shaxda cayaaraya intaasuu eegaa markuu cabbaar u fiirsado shatranjka ninka cayaaraya intuu saa u eegaba wuxuu idhaahdaa istabka shanaad baan ku qabanayaa buu leeyahy boqorkaagu u dhintay istabka shanaad hoosuu u dhintay wuxuu xisaabinayaa inta suurtagal ee aad haysatay inaad guurto iyo guuris kastoo aad guurto inuu jawaabteeda garanayo jawaabta ka dambaysa uu garanayo deetana wuxuu ku leeyahy 5 goor markaynu guurno boqorkaagu dhintay wuxuu sii xisaabiyey intaasoo jeer sida loo guurayo marka waxay idhahdaan labada nina shaxda wada ciyaaraya ama shatranjka wada ciyaaraya kollayba horta mid baa badinaya soocaynka ma aha laakiin waxa lagaa badiyey mar aad cayaarta wixii awooddaada oo dhan aad isticmaasho aad fakertay oo ku tala gashay wax kasta inaad ka jawaabi karto waxay idhahdaan laacibka siyaasiga ee dhabka ahi waa kaas bay idhahdaan waa nin garan kara axsaabta siyaasadda waxa layshayo haddaad waxaa guurto maxaa soo baxaya waxay idhahdaan cagsiga cayaarta cayaar kalaa u ah cayaarta laadhuuda la ydhahdo soo ma taqaaniin maxaa la cayaaraa weligaaba isxiiji 6 ilaa ka dhigu baad odhanaysaa ma garanaysid wax ka soo baxaya baalku ma dhow 6 hal baa laga yaabaa inuu ku soo baxo adigu 6 baad raadinaysa ma kantarooshid waxa soo baxaya waxay idhahdeen laacibka laadhuugu siyaasi maaha haddaad tiraa aynu ku dhufannu wuxuunbay soo bixii mashaahada wayma nasriya meel bay ka bixi doontaa waa laacibkii laadhuudaad waayo asalku waa inaad guulaysataa asalku waa kaa nabigu calayhi salaatu wasalaam maalan ghaswatu badar ma odhanin ku kiciya waa shahaada helaysaan wuxuu lahaa ilaahu intani hadday halaagsanto dunida dib laguga caabudi maayo shahaadadu uma yahayn matlab jamaaci uu leeyahy wada dhinta aakhira janno gelaysaane islaam buu rabay inuu wado inay wada dhintaan ma rabin sadraadeed inuu guulaystaaba ayuu ahaa waxa koowaad ee optionka u yaalla laakiin meel dagaal ka dhacay kollayba waa la dhimanaya waa in dad shahaado helaan haddaad dadkao dhan u qoondayso ka warran inay shahaadada helaan tiraa ku kiciya aakhira janno wada gelaysaane يعني waxaan uga jeedaa masalada tani waxa weeyaan waxaan jeclay inaa idinkuna aamustaan waxaan tilmaamaynaa waxa weeyaan qiyaadada islaamiga ahi waa inay noqotaa qiyaado fahmi karta yani ummadda islaamiga cidda hogaamin karta waa inuu noqdaa qof fahmi kara lucabka la cayaaraya nooca uu yahay waa inuu noqon karaa qof islaam dhaba fahmi karayo tabiqi karaya qof garan kara lucabkan cidda la cayaaraysa sida loola cayaarayo haddii aydan samayn karayn markaa qaa'idku ummadda hogaaminaya hadduu yahay qof aan samayn karaynin wixii loo baahnaa oo rushdigu hadduu xamaasku ka bato xamaaska iyo caatifadda iyo cadhada iyo xiisuhu hadduu ka bato caqliga wax badanoo soconaya maaha si kale haddaanu tilmaamo ma daawateen cayaar la yidhaahdo musaaracatu hiiraan cayaarta ay caanka ku yihiin nimanka loo yaqaano isbaanishku isbanyoolku dibi la daawado oo meel oo nin maro yaroo cas taago oo dibiga intaa
warma lagu mudmudo xanaaqaad dabeetana ninka jiidh buu isiraahdaa mara yaroo cas buu taagaa maradu jiidha waxay dhahdaan qaa'idka aan ahayn qaa'id siyaasi oo muxannaki wuxuu la mid yahay dibiga marada cas loo taago waxa aan ku ahayn wixii important ku adduunyo waxaad ku diriraysaa waxaad la mid tahay ninkan marada cas loo taagayo dibigu marka laga cadhaysiiyo ninka dil buu is odhanayaa laakiin marka marada cas loo taago iyadun buu arkaa saa daraaddeed marada cas buu cararayaa markuu marada cas mar jiraba waran baa la geliyaa markaa dabeetana wuu soo wareegaa wuu soo cararaa xagga kaloo marada cas u gudbiyaa taasuu jiidhaa waran kalu geliyaa cayaarta la daawanaya waxa weeyaan ninkan cayaartooyga ee meesha taagani dibigaa inta laga dilayay dadku daawanayaanoo waada lahayaa markuu waran la geliyaba musaaracatu hiiraan waxaa cayaaraya qofka ku jira dagaallo haamashiyo aan ahayn wixii ummaddu ay u baahnayd waxaan loo baahnayn haddaad ku jirto waxaad la mid tahay quwa lacdaa dadka kaa xoogga badan le cadowgii wuxuu jecel yahay intaanad xoogaysan in lagu buquujiyo si taasi ay u dhici karta waxa weeyaan in saaxada lagu soo saaraa fiican intaanad naf badan yeelanin dabeetana waa inaad noqotaa dibigaa kolba laga cadhaysiinaya waranka madax laga gelinayo ee baasha cas riixaya markaan soo koobo qodobka koowaad aan tilmaamaya waxa weeyaan qiyaada calaa mustawa alumma waa inuu noqdaa qiyaadadaasi mid laacib siyaasiya noqon karo dhaba ثالث الأمر waxaan leenahay qadaaya alumma waxay u baahan tahay inay ummadii ka fakerto koox yaroo gaar oo isku xidhata guri madow ummadda inay ku qasabto waxay iyadu doonayso maaha ummaddu dabcan waa islaamnimo waa in kitaab iyo sunno la isku xukumaa waa in kitaab iyo sunno la raacaa laakiin kitaab iyo sunno dharaar yaalla waa inuu noqdaa kitaab iyo sunne ummaddu ay ka tashan karto maadaama ay umma islaamiyiin umamka sidoodaba kama maarmaan waxa loo yaqaano wada tashiga nebi maxamed goorta ilaahay farayo inuu saxaabadiisa la tashada waa goorma calayhi salaatu wasalaam waa goor talooyinkooda qaarkood laga yaabo wixii ka ratibmay inuu jab ahaa ghaswatu uxud maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam taladiisii waxay u badnayd in magaalada la joogo oo difaaca laga galo laakiin qolo dhallinyaro xamaasadaysan iyo kooxa isugu tagay oo yidhi maxaynu magaalada ka qabanayna dabadda inoo saar dabeetana dabaddii baa loo baxay dagaalkii baa la galay calaa kulli xaal dhib badan baa muslimiinta soo gaadhay dhibtaasi markay soo gaadhay kadib baa ilaahay qur-aan soo dejiyey qur-aankaa ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik facfu canhum wastakfir lahum haddaad ahaan lahayd baa ilaahay leeyahy mid dabeecad adag oo qalbi adag dadku way kaa yaaci lahaayeen walow xaqba sheege iska cafi baa ilaahay yidhi oo ilaahay subxaana wa tacaala dembi dhaaf weydii kuwa la leeyay cafi ayaa ilaahay wuxuu leeyahy washaawirhum fi lamr iyaga la tasha baa ilahay leeyahy waa kuwii dembaabay ama sababihii colku uu ku jabay keenay sababihii colku uu ku jabay waa maxay masaladu maxay tilmaamaysaa markan unbay dhacdadu idinka qaldantaye aslu shuura ma xumaan la tilmaamaya walow waa jabteenne waxaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo tilmaamaya saxaabadan gaftay inuu cafiyo laakiin saxaabada la cafinaya waa kuwa ragga badh baa goobta ka cararay madiinaa loogu tegay ragga badh markii la jabay wax badan oo dhibaato ah baa dhacday haddana ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr dembigooda ilaahay dembi dhaaf u weydii adiguna cafi arrinkana kala tasho waamurhum shuuraa baynahum idan waxay leenahay tani maxay keensanaysaa waxay keensanaysaa dadka ahlu cilmiga ah iyo ahlu khibraha ah iyo takhasusaadka cilmiga ah leh in badan wax la weydiin karo laakiin haddaad iyaga kala dhuumato maxaa soo baxaya haddaad wixii kitaabba yaqaana aad ka dhuumato tidhaahdo kitaabkaanaan dabaqaya ka warran waa balaayo kale waxay ahayd talada ugu badan cidda la weydiinaya inay noqoto ciddii cilmiga lahayd mid shareeco mid dhaqaale mid siyaasadeed mid diineed mid dagaaleed ummadda kaadirkeedii waxgaradka ahaa qiyaadaadkeedii hogaaminaya inuu noqdo dadka waxa badan la weydiinaya ummadda muslimiinta waxa weeyaan in lala tashado fi silmi wa fi lxarb nabad hadday tay iyo dagaal hadday tay siyaasad hadday tay dhaqaale hadday tay waxay ummadi leedahay ummad baa leh waa inay ummaddu taladeeda wadaagtaa walidaalika waxay yidhahdaan isbedelada ummadda ah ku dhaca saddex meelood buu maraa bay yidhaahdaan
saddexda meelood oo mara waxa weeyaan bay yidhaahdaan kooxda koowaad waxay ku tilmaamaan shariixatulbadi waa dad ideology rumaysan maalan nin caalima oo fikrad diineed faafinaya isbeddelku shariixada ideologygu ma bilowdo shariixada fikradda sida maaha isbeddelka waxa samaysa iyagu cuquuli naas bay isku dayaan inay isbeddeli karaan laakiin ummad ahaan waxa bedela waxay yidhahdaan asxaabi shawka wanufuud waxay culammadu ku tilmaamaan ama ahlulxalli walcaqdi iyo wixii ka mid ah waxaa bedela dadka ummadda hoggaanka u haya isbeddelku uu ka suurtageliyey mid dhaqaale ha noqdo hoggaan cilmiyeed hoggaan dhaqaale hoggaan maamul wuxuu doonaya ha noqdo dadka hoggaanka u haya ummaddu hadday isbeddelka iyagu qaataan ayay fududaataa shariixada inta kalena inay dhismaha ummadduna waxay dhaha waa shariixatulbinaayo iyaga dadkao dhan baa ka qayb gala wakhtigaan idinku tiro badiyey laakiin waxaan ku soo koobayaa makhrajku waa wax cad waa waman yattaqi illaha yajcal lahu makhraja wayarzuqhu min xayثu laa yaxtasib waa war cad oo ilaahay qur-aan ku sheegay wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaat layastakhlifannahum fi اlard laakiin wuxuu u baahan yahay in la gaadhsiiyo camalkaa saalixa ahi inuu ikhlaasna yeesho mutaabacana u yeesho mutaabaco rasmiyana wuxuu yeelan karaa marka waaqaca si fiican loo daraaseeyey ee daawadii u cuntantay kitaabkii sunnaa looga keeno ee markaasuu sida saxa noqon karaa waxaan ku soo koobayaa markaasi ilaahi subxaanahu wa tacaala inaynu in badan barinaba muhima deriskaygani waxa gundhig u ah isku day kastoo fashila rag baa fashilay ee islaamnimadu ma fashilin masaladaasina caqligiinna si fiican ha ahaato isku day kasta muxaawaladaa ciddii siday ayaa miscalculation samaysay iyagaa siday u xisaabtameen ay qaldanayd amaa islaamku 1000 sannadood buu dunida tan keligii talinayey أو هجاميني أو هرسعدي والله أعلم بالله التوفيق السلام عليكم الله من قلبي وأقصده على دربي أعدد من فضائله